بسم الله الرحمن الرحيم قلبت waxaynu ka hadli doonaa ka hadlaya arrimahan ishuudan taagan ninkii jira wuxuu yiri wixii hore saleele ahayd cali sandheerowe ma hadday saboolkii fadhiyay soo la dhacayaan buuri horta cabashadii hore waxay ahayd ee bulshadu waxa laga cabanayay arrimaha bulshada ay tahay waxbarashada hadii ay tahay kala qaybinta bulshada hadii ay tahay amniga hadii tahay biyo xumaanta hadii tahay leerka hadii tahay boobka hantida ummadda hadii ay tahay G+1ka lagu dhisanayo hantidoodii ayaa laga cabanayay qaylada ugu dareed maanta bilaabantay waxaan qarsoonayn cabashadu way jirtay marba marakad musta maanta bukaankii ugu daraa isbitaalka weyn yaalay ee kaliyaha loo meedhiyay inay banaanka u soo baxaan markii ay waayeen adeeg caafimaad markii ay waayeen cid ay la xidhiidhaan markii lagu yiri soo iibsada qalabka leedku safaynayo ay wixiiba intay soo iibsadeen ay yiraahdeen mishiinka noo fura oo nagu safeeya ee la yiri mishiinka waxbay ay agaasimo waayeen ay wasiir waayeen ay cid kale oo maamul isbitaal waayeen waxay ku khasbanaadeen intay boodar qaateen inay mudaharaadaan oo is hor taagan madaxtooyada waxay ahayd xukuumadda Soomaaliland ugu sareeyay madaxweynuhu wasiirka caafimaadka in dadka loo damqado halkan inay soo gaaraan ba ma ahayn looma jawaabin wixii ay ka cabanayeen lama eegin wasiirka caafimaadka hadlay wuxuu yiri gacmo shisheeya ku jira buuri gacmo shisheeye ayaa ku jira waa arrin aad looga xumaado weey wax laga yiqiiqsoodo weey wax aan damiirka nool qaadan kareynin weey waa calaamadaha dictatorka weey dictatorku marka uu dadka doonayo inuu marka uu doonayo inuu ku sii nagaado kursiga uu dadka majara hawaabiyo bulshadu iska hor keenaa iyagu soo adeegsadaa gacmo shisheeya ku jira wuu yiraahdaa waxaan wax loo dulqaataa hayn oo maanta damiirkeenu uu diidaya bukaankii isbitaalka jiifay ee soo daqaqamay ee soo kacay ee naftu ay xamil weeyday ee maalintiiba 24 saacadood mar baa loo meedhi jiray lagu yiri waxa la idin meedhayaa 48 saacadood mar ee haddana waayay ee lacagtoodii sitay ee waayay in bukaan kale oo jiifa fadhiga laga soo kiciyo la yiraahdo u jawaaba waa meel aan wiligeed aynan gaadhin waa meel bila aadanimada ka baxsan waxay noqotay tubatu ku ilow halkii ugu darayd bay maanta maraysaa xukuumadda madaxweyne Ciro ugu sareeyay madaxweynuhu ma dhigala oo ma indhala bulshadana waa kuwa u dhaarteen iyadoo awalba la qawaysana oo la saluugsana xulashadiisa madaxweyne Ciro maantana waxa timi inaan la kala xishoonin oo beeshinkii la kala qaybsanayo MRA-gii dadka meel bareefada u yaalo wax way halkii ugu liidatay war dad jiifa isbitaalka ayaa la nabad gelin waayay waxoodii maqaar soconaya la deynaya arintani waxa weeyaan waa arrin aynan wax allaalay waxaan ku faalayna ma garanayna madaxweynihii la doortay ummadda u ballan qaaday uu de madaxweynihii sax yahay oo uu soo jeedo de arrintan wuxuu eeganayo bulshada uu dadkii uu magacaabay ugu eeganayo damiir laawayaashan waa damiir laawayaal baan ugu oran karaa dee ninka xul ummadeed loo dhiibay ee wasiira adeeg bulsho haya dadkii isbitaalka joogay ay soo dareereen adeeg xumo awgeed isbitaalka hortiisa qaarna laga qaadayo bariilaha lagu riixayo intuu TV-ga qaranka u yeedho inuu yiraahdo gacmo shisheeye ugu jira waa arrinkaasi waa arrin aan cidina dul qaadan karayn waa arrin fool xumo ah dadku iyaga nabadgeliyada iyo ammaanka iyo in wax loo qabto iyo in iska noolaadaan jecel noloshiiba loogu yimiba waxaan leeyahay
bulshada reer somalilan war waynu gaadhiyo waxaan waynu ka bixi waanaynu adkaysanayna waa aragtaan dee xukuumadda aan laba jirsan weli may laba jirsan ee maanta ay eedaheedii iyo wixeedii si ay isu dul rashaysan yihiin maanta ee ku mashquulsan g plus 1 saqda dhexe saddex habeenimo hooyo laga qaylisiinayo ilma 2 bilood haysata jeelka lagu tuurayo arrintaasi waa arrimo aan loo dul qaadan karaynin waan cambaareynayna madaxweyne mar baan kula hadalay oo laban kula hadalay oo saddex baan kula hadalay oo wuxuun baan u arkaynaa inaad dadka dhibaatadooda ku raaxaysanayso adigu dadka dhibaatadooda inaad ku raaxaysanaysaan ku arkaynaa haddii mar iyo laba iyo saddexba lagula hadlay wasiiradaada kuwa adeegga bulshada ku haya dadka aad u cugatay ee maran ee meella'aadkaa ee ku mashquulsan sawirada iyo g pluska isugu faanaya haddii aad waxba ka qaban weydo tallaabo ka qaadi weydo waxaa iman doonta in arrintaas dee ay foolxumo keento oo iminka wadda cidi ma aaminsano xukuumaddaada iyo dowladdaada cidina kuma kalsoona ee dadkuunbaa iska fadhiya oo nabadgelyada danaynaya ayaan leenahay arrintaas maanta taagan waxaan kaga baxayaa oo aan leeyahay madaxweynihii ummaddaa tahay oo dee weli waa dadka qaar baaba weli balaa kaasii qaba rajee madaxweyne dee aad ilaahaaga taqaano arrintaa ay taa maanta dhacday ugu horrayso bal adeeg kale haba sii joogo g plus 1kiina iyo wixiina waa la arkaayo dee joojin weydee dasaqda dhexe jaarkaagii aad isku duruufta iyo isku danta haydeen 20 sanaad mucaaradka ahayd kugu xigay aad tiri saq dhexe iga saara markii la weydiiyena ay yidhaahdeen dalka waa la ictiraafay madaxweynaha amnigiisa la ilaalinaya waxa weeye waa wax mentalitigooda liita iyo garaad xumada iyo kaga darin iyo si bulshadooda ula ficiltamayaan allay dad baaba jawaab waafiya laga helay mas'uuliyiintii dhamayd ee xukuumadda u shaqeynaysa kelmad bulshada ay ku qanacday weli kama soo bixin arrin kasta oo yimaada dhibaato kasta ay geystaan marka leedahay maxay ku dhacday caynkaas iyo caynkaas iska ordayn wax iska iisiya waxaan leeyahay madaxweyne arrintaa wax ka qabo oo degdeg wax uga qabo ayaan leenahay arrintaa wax ka qabo oo degdeg wax uga qabo haddii aad waxba ka qaban karin dee u sheeg waxaad tiraahdaa warnimo dee way doorateen meeshana way geyseen dee waxaana islama haya dee sheeg dadka dee dadku dee way ku eegayaan bulshada reer somaliland waxaan leeyahay nabadgelyada waynu ilaashanna horena wataynu ilaashan waanaynu aragnaa xukuumaddii aynu dooranay insha allahu way iman doontaa xukuumad aad haa ka tidhaahdaan oo ka habaa imane iska samra oo iska dulqaata arrinta ugu daran ee aan kaga baxaya waxa weeye la sheegayaa qofkii beeshinka ahaa yaala cisbitaalka waxaa la odhanaya soo iibso waxaaga o dhan dawadii soo iibso tii lagu safeynay soo iibso shiliishkii soo iibso wixiiba qofkii markuu soo iibso halkan soo dhigto waxa weeyaan cid u adeegtaanu helayn kelmadda ugu dambaysa waxaan oranaya qolada dhakhaatiirta reer somaliland dhakhaatiirta war dadkiina u adeega oo goobaha caafimaadka taga oo u sameeya volunteer ugu adeega oo u damqada dadkiina beeshinka ah ee bukaan socodka ah ee liita si u kala dariin ha ku halaynina dawlad ha ku halaynina xukuumad cidda aynu aragno ha ku halaynina baa leeyahay dhakhaatiirta waxaan ka codsanayaa war aynu ummadda bilaash ugu adeegno oo nin walba cisbitaalkaaga wixii aad qalab haysatay wixii aad awood u leedahay u shaqee oo kii aqoon u leh ha yimaada cisbitaalka oo ha u adeego dadka oo aynu dadka horta liito u kacno